ma fiican tahay waa fiican aniga haatan muuqaalka aan sameynaayo inta xanuunsan caafimaad u rajeynaa inta dhimatay meel walba ay naga aadan yihiin ilaahay ha u naxariisto haddii culays uu ku saaran yahay ilaahay waxaan kaa rajeynaa inuu culays kaa qaado kuwa firfircoon ilaahay inuu siyaadiyo firfircoonida cashirkeena waxaan kaga hadli doonaa qayb dib u dhignay oo ahayd preparation markaan waxaan sameynaynaa alkiin aan diyaarinaynaa waxaa u socona maxaa waaye inaan alkiin sameynaa rabnaa alkiin haddaan sameyno waxyaabo badan bay naga caawinaysaa alxanka ka mid ah alxanka oo kale baash wax lagu axlamo biraha lagu axlamo alkiina laga keenaa yuuskaa ku arki doonaa insha allah si la mid ah qaar ka mid ah cunada lagu bisleeyaa ama cunada lagu ilaaliyaa marka waa muhiim sa cunaa u ilaashana waa muhiim si la mid ah axlankaas aa u isticmaalno holaciisa dab wax aa ugu dhajin waa muhiim sidaa daraadeed maadaama kuwaas aa u baahannahay marka waxaan rabnaa haddii beritu ilaahay qalabka uu noo sahlan hadda muuqaalka waxaan duubaynaa 22 in ma aragtayo oo dee waddanka saamiska ahaanaye haddii qalabka inaa wixii adhow aan sameyn karno tan labaad haddii aan sameyn karno hadda sidaan aan nahayna dee inaan concept ka haysan maadaama chemistry aan barano okay horta meeshan waxaa kusoo laabanaysa dehydration dehalogenation waxaan aan ujeeda dehy markaa maqashay bimacnaa removal waay waxaa la saaraya dehydro tusaaleaad waxaa nooga horeeyo dehydration of alcohol alkiina la sameynaa alkiinkaas marka la sameeyo alcohola meesha laga saara bimacnaa alcohola la haystaa waxaa laga soo saaraa alkiin sidee tusaale ahaan waxaa haysanaa CH xaggan waxaa ku haysanaa OH xaggan H xagganna H xaggan H xaggan H xagganna H dabcan meeshaad waxaan ku haysanaa maxaa waaye alcohol waaye alcohol ma gaarin am sorry aad weli ku soo barin sax OH kaana meesha ku jirno hadduu OH kan ku jiro alcohol waaye macnaha insha Allah qaybaad ma ku baran doonaa alcohol kaana la qabanaa marka alcoholka marka la qabto waa la kulleynaa alcoholka la kulleynaa waxaa lagu kulleynaa marka sulfuric sulfuric la isticmaalaa sulfuric la isticmaalaa xaggaana waxaa laga dhigaa kuleel marka xaggaana la kuleeliyo xaggaana laga dhigay sulfuric hadda weli buuggeena wuxuu boqorayaa 180 degree la geynayaa buu leeyahay kululeynta kadib maxaa ka dhacaya marka kadib waxaa dhacaya in alkiin uu sameysmo xaggan waxaa ka soo baxaya marka in la helo alkiin in la helo ufers waxaa dhacaysa wuxuu isticmaala buugga CH double bond markuu saas u isticmaala macnaha xaggan waxaa dhacaysa marka in xaggan LH uu qabsado xaggan LH qabsato xaggan LH qabsato xaggan LH qabsato markaasna banaanka loo saaro bio HOH in banaanka loo saaro macnaha maxaa la sameeyey marka hore waxaa la haystay ethanol la haystay haddana maxaa la soo saaray ethene baa la soo saaray kan waa la saaray ka dhiganta markii alcohol la qabtay oo la karkariyay oo acid lagu daray waxa waaye banaanka loo saaray waterkaas banaanka loo saaray maxaa sameysay alkiina sameysay way ethylene am ethene ayaa sameysantay labadaba isku hadlay hadda waxaa isla fahanay waa ka raalgelina buuqan xoogaa studiyihiina dhinac waxaa kaga dhigan qayb uu qolo mood sameysa kaga dhigan marka sometimes way iska sheelanayaan marka cafwan ya okay dehydration of alcohol marka isla fahanimo waxa waaye alkiin horta anaga guud ahaan alkiinta diyaarinoona marna waxaa ka diyaarin karnaa alcohol anagoo haysanaa alkiinka sameyn karnaa markaana fiiri marka halogenation la sameynaa alcohol maxaa laga wadaa alcohol halada la saaraya si alkiin loo sameeyo maxaa loo socdaa alkiin in la sameeyo salaamada tiila la soo qaatay mar kale isku dhiska baa la soo qaadanaya wax baa laga bedelayaa bis C kaarboonta oo kaarboon kale kaarboonkan qaybtana waxaa loogu xiray brom macnaha ileen waxaa la rabaa halogenation mooho markii la dhaho halo waa inay ku jiraan reer in waa inay ku jiraan ama bromine ama chlorine waa inay ku jirtaa meesha
tan laba gacana u banaan labada gacan u buuxi HH tan saddex gacana u banaan saddexda gacan u buuxi islaaynaada balas waxa ku dareynaa marka waxaan ku dareynaa potassium hydroxide ku dareynaa marka sidaan yeelno maadadaana haysanay maadadaana ku darnay targetkeena maxaa waay inaan soo saarno alkene saa markaa isugu darna kadib waxaa dhacaysa marka waa la kululeeyaa marka waxaa la marsinaa kuleel heat ayaa kor laga saaraa heat la marsinaa heatkaas waxaa qayb ka qaadanaya hydrobrom kadib maxaa soo baxaya marka waxaa soo baxaysa meeshii CH2 double bond CH2 banaanka waxaa u baxaya marka potassium bromide iyo water banaanka loo saaraya hadafka la lahaa muxuu ahaa in la sameeyo alkene waa kaasa waa la sameeyay isla fahanay alkene meesha buu ka marka waa qaybta labaad ee habka labaad ee loo sameyn karo alkene-ka way macnaha qaybtaad inaan ka tago inaan waxaan rabaa aan meesha ku dhaafo sababtu waxay tahay qaybahan ay ku jirtaa tan xitaa ay ku jirtaa adana iska dhaafo the halogenation of fissional dihalide fissional dihalide ka idana waxa waaye waxaa la sameynayaa waxaa lagu darayaa ALC baa lagu darayaa ee lagu kordhinayaa meesha tan haddaan soo qaadano bromta u badino tusaale ahaan inta lana geey meel fog kana geey ma arkaya meesha ma arkaa okay laba carbon noo soo qaad gacankan brom ugu xir carbonkan labaadna gacankan brom ugu xir kan laba gacanaha u furan u buuxi kanna laba gacanaha u furan u buuxi mujeedaa plus waxaan ku dareynaa marka ALC baan ku dareynaa oo potassium hydroxide ayaan ku kordhinaynaa kadib waxaan isticmaalaynaa catalyst hydrobroma isticmaalaynaa kadib maxaa ka soo baxaya marka kadib meesha waxaaba ka abuurmayaba alkene abuurmaya oo fiirso double bond meesha ma ka samaysmay labada brom hal xaggaas ku dhigi halkan hal gacana u banaan halna gacanka kana cunaayo halkan hal u saar xaggaana hal u saar meeshaana maxaa laga soo saaray ayadana alkene baa laga sameeyay oo ah phenyl bromide marka la sameynayo alkene marka la diyaarinayo intaasoo nooca loo diyaarin karaa alkene waa soo diyaarinaya maxaa loo isticmaalaa kaale alkene horta hore ethylene waxaa loo isticmaalaa si looga sameeyo wax loo yaqaano polythene wax la dhaho si loo sameeyo ayaa loo isticmaalaa isla hayna buugga marka wuxuu sameynaa marna wuxuu qoraa ethylene marna wuxuu qoraa ethylene isku hal leh waa ethylene common name waa ethylene waxa waaye ayuubag name waa isla fahani marka labadaba waa israaciin fan hal qado waa ka dhigay ethylene to kale waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo yiri polythene oo ah in la badiyo oo isku dartaro laga dhigo laga dhigo polythene and iyo ripening agent for food iyo wax macnaha agent oo lagu bisleeyo cunada ama preservation waa la dhigi karaa oo ah cunada waxyaabo lagu ilaaliyo na waa lagu sameyn karaa marka cunadii wax lagu ilaalisaa u helno ama waxyaabo qaar oo cunada inay bislaato ka qayb qaadanaysaa u helno ina alkene helna u baahanahay alkene ina helna maadaama u baahanahay ina alkene si loo diyaarinayo barana waa infaanti hadda anaga agentidani waxaan ma haysano laakiin hadda oo muuqaalka aan duubayo ma haysano laakiin mar la barajada lagama quusto mar labaad hortaan iga haysaa tan labaad waxa waaye haddii alkene-ka waxaan naqaanaa sifaad kiimikeedkooda waxaa ka mid ah combustion reaction maaho haddii oxygen lagu gubo ethene-to kale waxaa loo isticmaali karaa ethylene baa loo isticmaali karaa ya oxyethylene baa loo isticmaali karaa ya oxyethylene ayaa loo isticmaali karaa oo in ma aragtaayo ethene-tii aan naqaanay ama ethylene-tii aan naqaanay oxygen ay la falgashaa dhacayso waxaa laga sameyn karaa marka holaca la yiraahdo oxyethylene laga sameyn karaa holacan maxaa loo isticmaalaa holacan which holacaas oo is ah used mid la isticmaalo oo loo isticmaalo cutting in lagu jaro metals birta lagu jaro and welding laguna alxamo metals birta lagu alxamo
marka waxay naqay haddii alkiin la waayo bir mal axlamaan hada kuwa maqlisa biray alxamooyin haddii alkiin la waayo bir alxamuum u jirayso understand ama waa yaraahe inkastoo ila kale laga heli karo alkiinisku used waxaa loo isticmaalaa to prepare in lagu diyaariyo alkiinka la soo qabana waxaa laga dhigayaa alkiin am alkiinka la soo qabana waxaa laga dhigaa alcohol alkiinka la soo qabana waxaa laga dhigaa alcohol halide isla fahanay waa soo qaadanay chemical propertieska waxaan soo qaadanay alkiina waxaan ka dhignay alkane ma xasuustaa waxaan ku darnay hydrogen bis anagoo alkiin haysano waxaan ku darnay H2 tusaale ahaan waxaa sameynay fiiri waa laga soo saari karaa waxaa sameynay CH waxaan rabaa inaan dhaho CH2 double bond CH2 waxaan ku darnay hydrogen maxaa ka soo baxay labada H kana ku dhaca maxaa soo baxay marka CH3 bond ka mee ku naqday hal uu naqday ma inta laba ka ahaa alkiin ma laga sameeyna marka saana loo sameyn karaa kuwa kalena saana loo sameyn karaa iyagana marka alkiiniska isticmaalkoodana waa kaasa halka waxaa noogu dhamaaday alkiiniska insha Allah waxaa ku xijinaynaa 10ka xiga wuxuu noqon doonaa alkaan soo noqon doonaa because ogow hadda marka soo baxnay hydrocarboniska ayaga ugu dhib badnaayo qolada alkiin lama soo baxnay yatarka waa dhow yahay khalaas oo kuwan kale alkainiska iyo si kooban buug uga hadlaya